كنت وأنا ولا سمعك استوجبتان ودار على سورة دوشة كده ومرة واحدة عيال سيسو سياسة الصومالية إركاس اسكو سريرتي إركاس أي شيء حالة ماشي وحمد أي بريسا تيجي حال لقى مسيحا قروي وراجل الدوني ويش كله هيرو ولا صبرتو منايا معارضتي محافظك هالكا كوبلانسان وحلي محمد عبد الله فرماجة ما تيجي دونا قالوا عرقي وريا ويلك أي لا تغيي محايا وحلي ماشي رجع افتح الناس وتغيو وحلي هاي ماشي عزي كماشي غيد دون تورقات أو مدحوينه كوكر تكفتن حالات وحلو ليه مقار كالس كسيبيا ها جمعها برية طلو حلكم يوجد يا مصطفى عجر محبسي بالله يا هو بريسكا أو عبدي إلي أيولين تلعب الدونا مقدشو محاكا صعدة مقدشو محاكا صعدة حسيق محمود يا حمد علي فقي حزبي أي فرن وحي قرية داليانا فربضان وعلى بريا لا بقول سحدح بقول فرفر بقول مكعدو بيد معسيين داليانا قرت محاكا دالكنا اسويدي أدوكو بشيكا سي أنا كو هيا ويا هيا كل شيء مع الصومالية محمد عبد الله فرماجي حس على غير محيوغا مسيين هرمود تلكم إن إذا ماذا كان يجوبيان مالين كاستحرموه دي جبوين كيجدو قد يجبوين كمكيا إسكاله إذا ماذا معامل صومبا مثل على صومالية قبان شركة هرمود تلكم يسبحين عشوره شيكوين كأسوأ نبع السودين يولد الصومالية شو يجاك بدين وحنا هو الدنيين يا بدبادين كرا صومالي قلبيت مكاي أرمضة وطان مكاي شارة تكريجة أي وتين مسويل جوحة أما قبل جوحة كسعطة ودنيا أو صوماليا أو صومالي لماذا أمسن شيكون كسر لنا دي حاجة لكن بشارة وحال أوضا يعني أوضا بشارة رجال مدو قارهان قرب الجوك تقول على طيب بياش الساعد هبر قدير ديك مدن باصوب بحضي مو باهد هاي دول بندر قالي كالي إمو دول بالو سيريا ودول دوغ او حتى تقروحda aad yaabayso waa dul istiraatiijiya lacag laga marraba ka dhiso baraaka ka dhiso daba ka dhiso waxa doonta ka dhiso ana ku hay sheekadaas maantana 160 boos oo waaweyn oo free la siinaya qurbo joogta ninkii daba ka dhisan lahaa kii jinkad ka dhisan lahaa waa degmo dal oo liya badar qaali oo gaalka ay dusheeda ku taala oo qurux badan oo dooga oo hadda beero waaweyn laga sameeyay ina al shu'a maxawaalay waa sheekada aan hay ina al shu'a maxawaalay ninkii ina al shu'a aha ninkii reeyay aha reer warfa isagana ma laga yaabaa inuu cabdi liinta la soo cabo مسا عجر باكا هورين دونا جور محمد محو جعل هذا مصطفى عجر شيكوين كاسودن وايهانا كمقنا هودا ايه ساكا سيدا وكتفيا وجرجريا ساكي واكو سلامي الفنان إلا عبد الله نونة وايهاي انكو هرمري وحاوية الله بدي استماده waxay ka hadlayaan على مسارك مدحوينها عصور بلان مصر داني وحال لي هلكا من مادونا محمد عبد الله فرماجو maxaa yeelay bullani way tira badan tahay waxay kala jeedayda oga waxay casuuntay ragii mucaaradka ahaa kuwooda ugu cusla shirif sheekh axmed ku socda cabdiraxmaan arshkuur loo yeelay xasan maxamuud iyo fiqiya halka ku sii wajahan waa la isku arkayaa meesha waxa dhici doona kaftan dhabka hadala jilbaha la soo laabaya marka dadku waxay leeyihiin war halkaasi maxamed cabdullaahi farmaajo inuu taga ma aha war ninka maanta hadduu leeyahay hadduu garasho leeyahay inuu halkaa taga maaha maxamed cabdullaahi farmaajo maxaa yeelay kama saaraysa leeyahay xaaladdu siday tahay odagu waxaa leeyahay inuu hadal looga qurxoon hadalka looga fiican warqad wax laga akhriyo halka kama shaqaynayso halka waa meeshii nimankaasi maxamuud saleebaan ay ninka ku jarjar lahaayeen waa meeshii gogol ceebad ka dhigi lahaayeen waa meeshii lagu faduuli lahaa farmaajina fuduusha ma jecla waxa leeyahay isku joogso ma haboona waxa leeyahay nimankaasi nabad nolol baxa waxay ku badbaadi karaan oo kaliya inay halka xasan cali khayr u diraan maxaa yeelay xasan ka indhaada waa markii ugu horeysay ee madaxweyne la caleema saaro uu leeyahay door wasay moogta marka waxa leeyahay ka indhaada xasan cali khayr hadduu u diro
laakiin farmaajo xitaa hadduu kaftamayo serious u hadlaa kolka xitaa kaftamayo maaragtay balaaqadii kaftanka ee Luther King ya ma keenayo odaga waa inuu qalloodaa odaga waa inuu xishoodaa odaga waa inuu hoos fiiriyaa odaga waa inuu tartaraa waa inuu hadalka isku dardaraa meeshana kama bixinayso waxaa meesha imaanaya ninka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ahaa Cabdiraxmaan Tol waayey ayaa imaanaya waxaa la magaciisa Cabdiraxmaan Tol waayey sababtoo Tol duu leeyahay de maalin wal meelaha kama naacleeyeen anigu taageero u mahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin ninkii meesha imaanay Cabdiraxmaan wuxuu ka bilaabayaa aayadda quraan waxay leedahay xadiiskaas wuxuu leeyahay markaasoo taariikhda mataqaanaa geopolitics waxay leedahay ayuu leeyahay markaasuu wuxuu soo xiganayaa taariikh dheer oo waxyaabo soo gogol gareeyay markaasuu su geysanaya xisaabtiisa dhaf markaasuu ku dhifanayaa tik ninka la yiraahdo farmaajo indho wuxuu ka sameeyay brig waa hadduu iska joogin shirif sheekh Axmed Maasuu xadiis iyo aayad isku qabanaya xasheeqay maasuu leeyahay waa maanta waxa inoo farxada inaynu joogno garow dhulku waxay ahayd taangeedii cashuurta lagu burburiyay ee baraagihiina lagu waxeeyay markaasuu indhaha barar ka siyaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadduu iska joogin way hadduu ka joogase isay u roonta say aniga taa way calaa xaal labadii isu timaado arrintaas ka hadlaysaa waa la ballamay garab waa lagu ballamay meeshu macalin masaar baa loo socdo dagaal siyaasadeed anigu waxay la tahay fagaaraha cali masaarku wuxuu bedeli doonaa fagaara siyaasadeed oo xifaaltan iyo kaftan dhabka hadala iyo qodad xun baa ka dhalan doonta halka ninkii daan yahay waa la maashayn doonaa sida la sheegay fil Soomaaliya warqad bay qortay ay madaxweyne daan ku wajayso in mucaaradka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur aana qudbooyin la siinin oo waxa la protocolka ilaaliya Puntland protocolka ma taqaanaane waxa leeyahay madaxdu un baa ka hadli karta meesha qudbo ka jeedi karto kuba kale waxa leeyahay jaamacadaha ka qudbeeyaan saasa leeyahay laakiin kama saaraysa sheekadaas sida ii muuqato sababta Xasan Maxamuud madaxweyne soo ahaa Cabdiraxmaan Buusiir buu soo ahaa Shariif Sheekh Axmed Naxalay uu cadeystay mowqifkiisa halkaas ay idinka hilmaamay xalay Sheekh Shariif wuxuu aamusnaa leeyahay madaxtooyadu lacag badan ka qaataa mushaar baa meel u saaran odagu waxba isla ma hayo xalay wuxuu ninkan ana idin baray dawladdaanu waa fashil waxa ma qaban waan tartamayaa mar kale xalay odagu Shariif la soo gamay xala seefto kala baxay gasha bariskii habaqlayso xalay halkaas oo taasi way halkaas ay ka biyaabtay qodobka xiga waxa weeye ninkii Axmed Macali Fiqiyaha iyo Xasan Sheekh Maxamuud xisbi fureen xisbigaasi Cabdiraxmaan Odowaaba ku jiro Maha Salaad baa ku jiro ninkii Fartaaga ku jiro Maryaxaan adigu qolooyin badan ba meesha isugu tagay nimankii la jiray daljir iyo nimankii la jiray mataqaanaa dalmud jadiid iyo kuwa hore socod kulladii waa la isugu tagay laakiin maxaa kale cusub sheekooyinku cusub waxa kamid ah waxa weeye 200 300 400 boqol ayaa loogu biiriyaa maalin kasta sidii shabaabkii bay dhalinta qorayaan dhalinyaradii kacdoonka la qorayaa oo taa maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay taasi degmooyinka in laga qoro waxay ka dhigan tahay xisbigu ku soo biiraan waxa soo socday webiga yaa weyn kuwa asxaabta Facebook ama social media kuwa afka dheerna akhbaar baan u hayaa bahasha lacag hela soo socota bisha March lacag baa la cunayaa si dhalinta loo qoriyaa dhaba waxa weeye haddaad maqli jirto qori baa la qaatay iyo hebel oo meesha shirku qabray baa laga celiyay iyo waxa siima shaqeyn doonaan Xasan Sheekh iyo ninka Shariif Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan iyo warqadii qoreen nimanka beesha caalamka u qoreen waxay yiraahdeen wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxa ka mas'uul nimanka haddii shir dambo aan leenahay nagala joojiyo xasan waxa leeyahay 170 askari iyo ciidamadoodii uu geysto guriga Shariif Sheekh Axmed wuxuu yiri hal isugo kaliya intaan garow ka soo laabanay nacala shaydan ku yaal oo maxaa dhacay ma ogin Allahu a'lam xamar baan tagay haddii shir la jooji karo Cabdiraxmaan ani mooga soo kuli doorto leh Cabdiraxmaan tol ugaaskiisa yaa duceeyay ugaaskiisa duceeyay xago tolka helaya waxa nacfiya xanaaq doonto marka saayiraad war ninka ugaaskiisa yaa ayra duceeyo farmaajo duceeyay xago tolka helaya waxa weeye calaa xaal bahashu sida muuqatahay waxa weeye iminka way kulaadsiyaa Soomaaliya haddaad ogeyd qurla su qaata maanta ma taagna haddaad ogeyd nin inta xil qaata meesha la fariistay yiraahdo aniga saasana hamaya saas ma Xasan Cali Khayre farmaajo inay xisbi furtaan suugiis
والله وبالله وطلع البيشيجي حالته إركاس كشرت مرة سي وحصل دارك تي وحط بليقينيو مرة هذه شن كنا ويل أو لأن يريق بليس وجرو ومقالة دقن قرطان قلنا حسيق يا أحمد الفقي وحاوي وحاحية رمش مالو بدك مكستا وقبل قابل ديار جرو ها ديار جرو بالصعدة دجال كودنا حسيق فرماجو كسو قدبي حلقي بيكو هوس لقى هردمي وكسو قدبي ما هو المحوري حسيق وحوري أصلا فريق أدريو أدريو يران هوي مدهك لكن هبل جديد يا مجاتين كيساق صول هلا يوحوري عشورتي دت كان لقى قاضي أيانين وحكو حسوقة أيو ورد بو ديارته كراعي ديارته لو يبي عشورته دت كان جيد لو يبي إذن كقرن كوا أديكسدي براجي وكعاصي أركاسو مري حسيا تاسو كان دقنيت لقد يجوا أكيد أو تاريخ النورش يسقوا الله ها مركا على حالكو هالكاسو مريا waxa inta kasi dar some gas and oil arinta ugu daran waxa weeye shirkad Chinese ayaa qadaas loo siiyay in ay ka kalluumaysto bad Soomaaliya waxay gelisay intaas oo boqol oo markab bay gelisay oo saa u jalaabanaya sida West Africa leeyahay 6 bilood kadib bad Soomaaliya waxa ku maharayaan waa baba laga dhigayaa intaas way inta la hubo oo qof kasta la soo taagay dadka Soomaaliyeedna heesaha jaceelka ay dhageysanayaan dad dhulkooda la boobaya Umeeka dad dhulkoodii badooda la boobay Umeeka taasi sameel dhiga markaa waxa ka sii daran konton baloog oo shidaalka Soomaaliya la bixiyo somagaas aan oil bixisay oo la sii shir baalan ka dhacaya waa la soo imaanaya xalaaladii Mustafa Cashar bay haysay laakiin bal nin wariyaha raadinaya oo arintaasi aad ula socday ayaan raadinaya somagaas aan oil shirka London laakiin inta aan soo geli ka hor Mustafa Cashar iyo Axmed Shide gudoomiye xisbiga isku dhigay meel xun bay isla gaareen xaaladda cirkaasay martay ninkii lacag jecelka ahaa ee la yiraahdo Cabdirashiid Al-Shuraac oo dogeydeen meeshii kala mari jireen isaga inkastoo debrigaas aan kulligeed waxaan ahaynba anti Cabdi Maxamed Umar waa ka soo horjeednaa Cabdi Moogta mucaaradan ahayn isku dhinaca xabada ka dina ila Al-Shuraac laakiin wuu ka badbadiyay marka isaga waxaan ku kala duwanaa isku haysanaa waxa weeye ina Al-Shuraac halkaas u dhimanaya asaga ina Al-Shuraac ma taqaana lagu aaga leeyahay bartaas oo wiilgu amur waa halkaas oo ninka ogaadeen halkaas u dhimanaya laakiin ilaahay runtii u jecel markaan naqiil u raadin Mustafa Cashar oo dhii wareeyda u naxariiso wan reesaaqadaan ninkaas fursad baa soo martay kama faa'iideysan xaqiiqatan ka hadlay sababtoo ah ninkaan meel intaasoo dhiba ka soo jiro yimid waxa la rabay inuu hore u socdo dadka walaaleeyo is-afiskooda ka shaqeeyo dawladda soo dhistay wuxuu ku mashquulay ya Ree Cali Yuusuf ya Ree Cabdullaah ya Cabdi Ilaahay soo shaqeeyay dadkoo dhan baa Cabdi Ilaahay soo shaqeeyay Cabdi Maxamed Umar dadkoo dhan baa la soo shaqeeyay mid wuxuu ku haystay iyo mid wuxuu siiyaba ha dadkoo dhan baa la soo shaqeeyay marka wuxuu ilaa degmooyinkiiba bedelay xamse waa ku soo qabanaya hadda ku soo qabanaya in kaadi marka waxa weeye dhulkii oo dhan buu bedelay ha waxa kale ma taqaana dhacday horta ila Al-Shuraac isaga warkiisu qabasho ma laha hunguri buu ku haystaa mid kale waa ay sheegay ninkan waa al-ittixaad lillahi Cashar al-ittixaad kuna qof ragii u bartay inay halka wax marsiyaan ay Cabdi Ilaahay u baray lacagta Cabdi Nisaqi oo hart Cabdi ha arxan daraado dadka ha xiro hadilo laakiin kuwa meesha la joogo iyo kuwa ma taqaana aaba dhihi jiray iyo waxa soo dhal ku maashay jiray ina Cashar waa al-ittixaad shil laga heli mayo deeyo ina Al-Shuraac oo yimid saahna qayliye marka dagaalamo sababtoo wuxuu leeyahay hala samro insha Allah ta'ala waa la qayrsanayaa xoolaha qaranka la ilaalinaya isagana dabalo dhisanayaa jaa laba guri oo Nairobi ka dhistina ina Cashar laakiin ragga kale wax ka sii maayo bawri V8 bixi jira Cabdi Ilaahay laga heli mayo haddana wuxuu raadsanayaa hebel baa saala xisbiga soo magalay
hebel ha la xiro oo cabdi ilay dadka xiri jiray muxuu ka dheef waxba kama dheefin marka waxa weeye waxa kaloo mustaf inkastoo rag xamsan maxamed iyo ciid cabdiwahaab iyo rag ma taqaanaa ciid cabdiwahaab sahal iyo cabdiwaaxid sahal ninka la yiraahdo ciid iyo rag ma taqaanaa aad aan u aaminsanahay inay yihiin rag jooxo ay wanaag igu sheegeen oo yiraahdeen runtii Soomaalnimada oo ka dhab haddana anu maraday joharadda waxaan dhigay xalay markaan saddex habeen arkay Jawar Maxamed iyo warbaahintii ma taqaanaa la dhihi jiray Oromia Media Network oo ku haysa cagjar say oromadu shalay anaga cabdi ilay tigray oo ahaa maantana ma oroma ma loo baxna Soomaali waxay u baahan tahay wiilkii yimid jooxa ama Somali College for Freedom ka yimid oo aan aaminsanayn dhulkan inay oromo u nacamleeyaan ama tigray marka ma shaqaynayso sida ay muuqato muxuu noqday marka cagjar muxuu noqday hadduu shalay ku eeday jiray cabdi ilay waxa watay tigray maanta nimo oromo wato hadduu ku eeday jiray shalay cabdi ilay waa qabyaalist isaaka maanta ka qabyaalad badnaaday hadduu ku eedayn jiray ma taqaanaa cadaalad darro isaga ka cadaalad badaraaday hadduu ku eedayn jiray inuu dadka walaalaha dilo iyo dadkooda ma taqaanaa sheegtay inay yihiin oo la fiiyo dadka siyaasadda kaga hor yimaado isagii waa kaasa oo hooyada dhashay sanyare ayuu guriga bannaan ka dhigay oo qadar maxamed cumar oo ma taqaanaa cabdil dhashiyo ka eryaday oo ilka casow eryaday oo cid walba raadsaday oo abtigii ina culuw xiray oo wuxuu wariyaa Reer Cali Yuusufa nimanka Reer Cali Yuusuf ayaga iska yara maxaa laga rabaa iska dhaaf siyaasad xumo ma taqaanaa ayaa ku dhacday ugu dambayna wasiirkiisa warfaafintu xiray oo muxuu xirayaa oo gudoomiye golaha dhexe ma taqaanaa xisbigu xiray oo muxuu xirayaa waxaan rabay diideen oo Cabdi Shal maxaa lagu heystay inta uu baa lagu heystay Cabdi cid kale wax kale lagu heystay ma jirin inta uu baa Cabdi Shal lagu heystay marka waxa weeye meeshaasi waxa weeye waxay u baahan tahay gabar ama wiil jooxa ay u baahan tahay oo cadaalad iyo Soomaalnimo nagu hogaamiyo oo baahneen oromada u shaqeeya mid tigreega u shaqeeya oo baahneen mid amxaar u shaqeeya oo baahan runtaas weey marka waxa weeye على حال نيكي اسعسل بالويل حقا الشيء اسعسل بالويل نيكي احمد شيخ قبطان مكي احمد شيخ هذا احمد شيخ waa jawaasiista oromada waaweyn way meelaha suka ma aha wasiirka maaliyadda federaalka way meelaha suka ma aha waliba axmed wuxuu si aaminsan yahay inuu soo ogaadeen ku xaq u lahayn inuu hogaamiyo Soomaali galbeed ayuu aaminsan yahay qadiidahan taasoo aaminsan yahay axmed run hadalna way laakiin siyaasad xumada yaa dilaya waxa dilaya siyaasad xumada Mustafa Cagjar ee kow dhalinyaradii meesha joogtay heegadii uu ku shaqaysan lahaa ku bishal heegada ay maanta in ku shaqaysteen rabo ku leeyahay heegay ahay shalay oo rag waa qaraabanayaan ragu Cabdi waxbuu sii jir wala qaraabanayaan adima ku shaqaysatid ma gacanta furta iimaanka laga qaad ma ku barray Cabdullah wanaagsatid oo soo dhawaysid shalay haddii shalay Cabdi ilay reesaaq oo dhigi jiray waa oo la fahla dilo adigu ma Reer Cabdullah wada wanaagsan soo dhaw dhahay maxaa dhibo kugu dhacay على حال بريتو جمعة سو ما هذا مصطفى عكتر waxa laga yaabaa inta la xiro inuu Cabdi ilay liinta lacab xabsiga liinta ku lacab tan kale waxa weey Ethiopia waxba iska bedel Ethiopia waa gumaysi Ethiopia ina al-shu'ana waxa leeyahay warbaawr fiida u baahnaaday qandaraas uu sii Soomaa Reer Cabdul Xuum haysid waxaan ka baqay in aqalkan ku arkado dhaysa aabo Cabdiyo CMC aabo free ado dhayso waa soo dhawda abba sooti iskaalo waa ku salaam wariino dil macal muqtar daa maqlaysid hore u soo gal barnaamijka gabagabadii maraya London maxaa ka socda London waxa ka socda beer oo horta soo wanaagsan adiga inta ku daawanaysa ku dhageysanaysa London waxa ka socda maalinta 8 bisha waa labo 7 bisha Febraayo waxa la doortay ninka la Farmaajo waa 8 bisha ayaa waxa London ka furmaya shir lagu iibinayo blogyada gaarayo ilaa konton oo shiraalka Soomaaliya oo ku fadhiyo 1700
kilomitr ma wax saasa hotelka yiraahdo Garages ee magaalada London ayuu shirkaas ka dhacayaa Sam Oil oo magaceeda u bedeltay shirkadda Speak Central ee dalka Norway ayaa iyagana ka qayb galaya 8 nin oo ayaa maanta magaalada Muqdisho ka baxaya 8daas waxa hogaaminaya Fred Hassan Al Khayra ilmadeer Allah iyo ninkii Maxamed Abdullahi Farmaajo ilmadeer Allah ayaa hogaaminaya waxayna tagayaan magaalada London ogaw madaxda qaranka meeshii ay ka aamin lahaayeen dad Soomaaliyeed waxay magacaawdeen waxay dirsadeen wiilal ilmadeer u yihiin waxaana ka mid ah dadka London tagaya sida la ii sheegay ninkii yiraahdo waxa ka mid ah waxay kala yihiin Karar Domar Dominic yiraahdo Abdullahi Haydar Ibrahim Hussein Maxamed Haji Maxamed iyo Abdullah Maxamed Haji Maxamed Abdullah waxay qaraawiyiin Hassan Al Khayra Karar Domi ogaasima guud ee wasaaradda batroolka oo Farmaajo qaraawiyiin Norway degan isagana Farmaajo ay qaraawiyiin marka waxaad dareemaysaa in madaxweynaha ra'iisul wasaare dadka ay dirteen bay yihiin qaraabadooda waxa la iibinayo inay tahay shidaalka Soomaaliya rasuulka shidaalka qiimo aad u jaban lagu iibinaa yani dad khubraa Soomaaliyeed aqoon u leh oo arrimaha shidaalka shaqo ku leh lama wacan waxa la wacayo kaliya oo la diray dad ay qaraawiyiin ujeedada ugu weyn waxa waa lacagta laga helo shidaalkaas in lagu galo doorashada lagu qoray 20 khayraadkii dalka iyo lacagtii qaranka dalka ayaa la rabaa in doorashada loo adeegsado shidaalkana qiimo aad u jaban lagu iibinaa waxa kale inta fiideen prime minister dalka oo shar ku leeyahay iibkaas laba qayb ayuu shar u leeyahay mid waa arintu isagoo fududay midna shirkadaha shidaalka ayuu isagu wax ka leeyahay waa maasantahay Soomaaliya meesha ku socoto waa arkaysaan dhinaca kalena madaxda Soomaaliya Maxamed Abdullahi waxay noo sheegeen wadaniyihiin hebel asaan la yeelay mataqaanaa wasaaradda ganacsiga Hormuud Telecom oo ah shirkadda ugu weyn ee canshuurta ka bixisay markaas ama dawladda Soomaaliya siisay xarumaheedii ciidanka militariga Ethiopia Kenya ayaa gubay maalin walba maamulka Jubaland kama hadal dawladda federaalka kama hadal maanta u bixi diiwaanada sarata ka hadleen arintan waxa loo baahan yahay dawladda Soomaaliyeed haddii aysan meesha kale ku jirin oo ah ganacsiga dad gaar ah iska leh la burburiyo inay madaxdooda iyo wasaaradaha ku shaqada leh intuba ay ka hadlaan intaana soo qaban Xamse Maxamed soo qabanaya hadduu ku jiro Xamse waxay soo qor intaana Xamse soo qaban waxaan leeyahay waxa weeye shalay haddii Cabdi Maxamed Umar ama Cabdi Ilay inagu aynu wax kasta ka sheegno nimankii la reey Cabdulluhu inay inagana soo raacaan mooyee horta anaga nama caay jirin dadkana ma caay jirin ninkii la ila calash ana waska ogno shal ninkii wuxuu ahaa aaminsanaa minasana u dhigi jiray aabbo way funaad soo qaadan jiray inaan qayr ka sugayna ma aha laakiin nimankii la reey saaq waxaan leeyahay reey saaqo haddaad intuu soo caaytamo ama wax ka sheego dhaliilo ina calash Cabdishii calash hadda inta Mustafa wax ka sheego aad idinku reey saaqo la yaqaan hebel iyo hebel inta qadka u gashaan ama Facebook gashaan aad ku caysaan wallaahi oo billaah tallahi isagaad siyaasiin waxa ogaanaysan garab baad u yeesheen u salahay garab ayaad u yeesheen ina calash qof kasta oo dhaliila fiiri qof kasta oo Mustafa Cashir dhaliila haddii qof reey saaqo wax ka sheego cadaawad u sameeyay waxba muu qaban runtaas way sababtoo ah markuu ayagoo hadda wax tisanay reerka reer Cabdulluhu ay wax tisanay haddii ninkaasi baawurka loo diiday mashruucyada iyo iimaanka la ayna calash oo Mustafa tuu dhaliilo la arko idinkoo mataqaanaa reer saaqo meelaha ku caynaya oo doondoonaya de reer Cabdulluhu soo raacayaan kaas qof barka cili ficlaan loo cadaaba markaana waxa naga lumayso jihada aan u soconay ee halganka ayaa naga lumayso jihada aan u soconay ee gobonimo doonka naga lumayso jihada aan u soconay ee arabnii reerka Maxamed Subeerka ahay inay halganka socdo kaalin weyn ka qaataan ayaa naga lumayso marka waxa dhilaa ninkaas wuxuu sheegay ha sheego ina calash waa taqaanaan nimanka reeyadii reer saaqo waxaan leeyahay joojiya caayda aad ninkaas caynaysiin ha caayanina saas aan leeyahay su'aasha kale meeshta waxa weeye Daahir Cali Sow iyo rag kale jawxa hadday isqabtaan Cagjar iyo Axmed Shide iyo la jiraan anaga 95% waxaan nool roon ina Cagjar ina Cagjar aan aamini karnaa marka loo fiiriyo Axmed Shide marka loo fiiriyo
ina cagjaraa boqolkiiba boqol ka fiican isaguna xoogaa yar caraahu qabaa iyo dabeecad xumo yar oo ah war dadka aarsiga ka daa dadka meeshu waxay u baahan yihiin inay ku noolaadaan ka daa dadka aarsiga bring a camera invitation marka laba ninoo raggii soomaali galbeed aan wacayaa xamse maxamed ma ka baxay cabd iyo ninka la yidhaahdo ma ka baxay cabdiwaaxid khaliif aawe cabdiwaaxid ciid cabdiwaaxid aawe sug meelaha ka fiiriye horta cabdiqaadir boos aan ku dayo waa kanaa xamse maxmed waa kanaa xamse maxmed aan ku alawal واكو سلامي استاذ حمزه كان طاهر سونو واكو سلامي waxaan ka rabaa dalaasti update maxaa ka socda asxaab maxaa ka socda jitiga soo xalku yahay ويا أصحابته والسلامية صباح ونكسب بنوتهاي أنا أديك دمانة والسلامية مد سومالي مركز جوجان سلام الله دايرو حد متال ببدي هرا دول كركرايسا horta meeshu xiniyo taawad bay maraysaa daahiro waya in dalkii Soomaaliyeed nidaam dabadhilif laga dhisto iyadoo Soomaalidu hadii wada gumaysiga la hoos joogayo inay nidaam yeelato autonomy oo madax banaan yaa la diidan yahay marka waxaan rabaa in yar inaan taabto wixii daraad dhacay waya soo حوي رئيس إثيوبيا وحود شوقا يوروب بوقشة كم مريا أو إثيوبيا دقالان بكون عضي بركان I think إن هولندا تباش شركة سعودية دقالها لقاها ضيو بركا سو إثيوبيا دقاله وهلا أيها الكشوقا وحد عضي بركا رئيس إثيوبيا مركز صوب حي إن مصطفى قرض حسب إثيوبيا كتر سيلي EBR ليفتا إلي la soo hadleen xogeynta party xisbigaas iyo xogeyaha guud ee xisbigaas kadibna Mustafa uu tagay Addis Ababa loo soo bandhigay inuu ku soo daro xisbiga ogolaado nidaamkii hore ee Tigreega raggii ay soo barbaariyeen ee Soomaalida ahaa dadkan dhiigooda cabi jiray in la yiri xisbiga ku soo dar halka waxa la isku haystaa waa taa weey marka مصطفى حوري dadkan waa dadka Soomaalida dhibaateeyay suurtagal ma aha dib u soo celino ninkan wasiirka maaliyadda ah xogeyaha maad xisbiga jigjiga maad maamulka ka jira oo de one side laba nin oo hal meel xabada ka wada ridaysa oo Soomaaliya ma aha nin wuxuu la socdaa xaggan ka soo jeedaa إذا تجيبوا كتير مركا سوالد ومتريا. واي. مركا وحيد نك الرسالة شوقة وسير كسوالد ولا هذا إنه الدفاع درها ودن كيس. واي. نكى مركا حسوت شديد أنا شداها هذا فرق بدن. حول مصطفى مركو تجي جذي حول حمر يو مقالة حمر بوحو ذاقنا. واي. oo dal iyo dad baan wadaagnaa laakiin maqale waxba ma wadaagna nidaamka guud ee isu kaana keenay qariirada ah ee mataqaana Ethiopia leeyahay yaa naga dhaxeeya hadalla marka noocaas oo la soo googooyo fara badan oo meesha ka shiday way Mustafa wuxuu yiri dahanuus ni Soomaaliyaana marka wax kale Mustafa way u waayeen justification Mustafa wuxuu soo istaagay arrimaha waa arrimaha Soomaaliyeed waxaan lagu xalisanayna waddankanagi markaas ayaa waxa dhacday inay qoladan yidhaheen mu'aamarada wadatay maartay xisbiga uu Axmed sida programka la wadaagay iyo
qola ka mid ah xisbiga oromada ee talada hay OBD-ooda leh oo dhowr qof ah oon kulligood ahayn in xisbigii iyo xubnihii guddiga fulinta la keenay Addis Ababa sidii cabdi lagu sameeyey oo kale isagoo jooga inta la kaxaystay baarlamaankii iyo xubnihii in la yidhi baa isagoo jigjiga joogo just la yidhi baa nidaamka maartay mustafa ka kacuu yidhi diyaaraddiisu maartay kusoo noqday marka waxaa la isku hayaa waxaa weeye hadda shaksi madaxweyne mustafa la yidhaha ma aha ninka la yidhaha shidana maaha waxa weye waxaa la isku hayaa masiirka ummadda soomaaliyeed sidee lagu badbaadin karaa marka waad la socotaa from Djibouti ilaa iyo Garissa Soomaalidii joogtay 100% waxay garab taagan yihiin nidaamka dadka Soomaaliyeed oo ay noqdaan dad nidaamkooda iyagu maamusho gaar u taagan marka daahirow waxa ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa arrintii maqlay habeen hore ayuu la soo hadlay madaxweyne Mustafa iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isla jooga arrintii raaligelin buu ka bixiyey wuxuu yidhi wax alla waxaan ka ogahay ma jirto marka wuxuu ahaa shirqool fashilmay oo la yidhi bal ninkan si aha lagu tijaabiyo maadaama Mustafa marka xag furfuraan ay jirto ganacsi ruux shakhsi keligii dadkoo dhan uu yidhi qof walba oo Soomaaliya awrku door ha rarto xadhigii iyo nidaamkii meesha uu ka baxay nimanka waxay doonayaan marka qof sidii nidaamkii meesha ka baxay oo kale Tigreega qof Soomaaliya oo adeegi kara marka halka la iska hayayo waa halkaas ka dhex galo laakiin Jawal Maxamed oo Oromo ah ayaa warbaahintii mataqaana Oromo Media Network ayaa dhahaya Mustafa fiican Mustafa meesha ha joogo marka say isu qabanaysaa hadalka Mustafa Cagar Oromada uma shaqeynayo iyo Jawal raba isqabadsi okay waa wax su'aal fiican weey aad iyo aad u fiican daahir Jawhar waa hogaamiyaha kacdoonka Oromada isaga Tigreega iyo meel ma wada galaan Ethiopia gumaysiya wali halkii uu taagan yahay wuxuu aaminsan yahay ujeedadiisii qayb kamid ah inuu ku guuleystay laakiin Oromadii nidaamka Ethiopia bay wali ku dhex jirtaa Oromo hadafkeedu wali meesha kama hirgelin Jawhar wuxuu aaminsan yahay xisbiga OBD oo la yiraahdo Oromada ee Abiy Ahmed uu ka tirsan yahay inay marin habaabiyeen halgankii Oromada sida daraadeed maadaama dhalinyarada kacdoonka ay isla ahaayeen isaga Mustafa haddii maanta tan jigjiga ku dhacdo berina iyagay ku dhacaysaa inkastoo ninka lama la yidhaahdo weli jooga gobolka Oromada uu weli daba dhilifkii yahay qoladii la shaqayn jirtay marka waxa weeyaan haddii marka Soomaali arrintan ay ku dhacdo waxaa bilaabanaysaa gacan ka hadal baa bilaabanaya marka arrintii Soomaalida iyo Oromada wada ogtahay Jawhar iyo Mustafa oo ku dirnaba ku xaliyay marka waxa la diidan yahay marka haddii khalad tii oo kala soo noqoto from meesha Djibouti xuduudkeeda maarta afarta Soomaalida meeshan hadda lagu haysto ilaa iyo mooyaale haddana waxa ka bilaabanaya marka arrimaha ay siyaasiyiinta Oromadu ka fikirayaan waxa weeyaan waa waraarinta waxay keeni kartaa fawdo iyo dhibaato okay su'aasha kale waxa weeye Cabdi Maxamed Cumar wax kasta ha ahaado rag ala shaqeynay dadka deegaanka hore shaqeynay wasiiray u ahaayeen xildhibaanay u ahaayeen shaqaalay u ahaayeen lamana xisbigii Tigreega ula shaqeynay ama TPLF u ahaa marka Jawhar wuxuu naga dhaadhicinayaa lama iyo groupkiisii Oromada sidoo ay xukunka u sii joogayaan wasiiradiisii taliyaashiisii tacdiyada geysan jiray laakiin kuwa Cabdi Maxamed Cumar qof kamid ah xisbiga soo ma geli karo waxa weeyaan daahir lama ninka la yidhaaho Oromada hadda madaxweynaha u ah hal bay Oromadu ku qaateen qoladii Soomaalida ahayd ee meesha joogtay intay geystay isagu dhibaato Oromada uu geystay laakiin intooda in lagama geysan wuuna isdaba qabtay oo kacdoonkii Oromada ee xooga badnaa crash buu ku samayn karay Tigreega intuu soo uma raacin marka meesha kaliya ee ay ku badbaadeen uu ku badbaaday ninkaas oo popularity uu ku helay Oromada waxa weeyaan
بريغ هور وين نبعاين وكعدون كودي صوب لو 2015 كيس بش سقالات نوفمبر دماضي فبراير سنة كي هورة صدح ذا سنة انتو دحايسي وحو دفاعي شعب كيس markaas maadaama uu awoodda oromada dhexdeeda ku helay ninka soo baxay ra'iisul wasaarahana isagu uu soo saaray isaga booska iska lahaa oo la leeyahay ra'iisul wasaaraha ninka ka awoodda badan waa ninkaas ayaa mataa barnaamijka hadda cabdi maxamed cumar qabashadiisii kow isaga ka ahaa lama ba ka ahaa haddana arrintan dawladdan hadda cusub maartay labada sano waqtiga ah xilka haynaysa waxa hadda weerarka ku soo qaaday ee barnaamijka ka dambeeya waxa weey waa isaga kow ka oo isagoo gobolka jooga Oromia isagu uu yeedhiyo oo jigjiga fadhiya way Mustafa wuxuu ku yiri laba state baa kala haysanaa adigu ka ku eeko ku yiri may Mustafa arrinta waa la sheegay laakiin adu ma qabtaa dadkii la shaqeynaya Cabdi Maxamed Cumar xisbiga ku jiray ee golaha dhexe ku jiray ee idolba ku jirtay ilaa Cabdi la shaqeyn jiray kulliha laga eriyo meesha sababta qabiil way deegaanka dad soo doortay muqata marka hadii Cabdi xitaa qaldamay ama Cabdi xumaa ama in laba golo xumaa hadii meesha ka baxeen in kasto ay soo shaqeysan la ugaarsado oo Mustafa weeyaan horta daahiro meesha mashaakil fara badan baa ka dhacay inaad jigjiga tagto waan jeclaan lahaa way عبدي محمد عمر لفتيسا مصطفى واكي وتضوات كي هورا لها سو ادسبه جوغا dadkii dhibaatada geystay ninkan kaliya maxaa inuu xabsiga ku jiro saraakiishii amri jirtayna ay banaanka joogaan wax suurtagal ma Mustafa horta u dooday waaye anigana aaminsan ninkaas inuu helo fair justice inuu helo oo cadaalad helo waaye waxa weeyaan laakiin nidaamkii meesha ka tagay inuu hal ruux ka soo noqdo one person inuu ka soo noqdo wax la aqbali kara ma haba yaraatee laakiin taas waxay keenaysaa gobolka inuu burburo sababtoo ah dadkaan ma burburayo no daahir ma burburayo no qabiil arrintu ma aha waxay taagan tahay Soomaali bay taagan tahay maanta laakiin qofka wuxuu ku yiri shalay wuu qaldanahay maantana waa ka soo noqday wuxuuna aaminsan yahay inuu qabiil yahay qabiilka deegaanka u dhashay yahay ama dhulkiisa dhulka uu yahay ninkan 20 sano 12 sano meeshaan soo haystay si ugu fikiraysiin fikirka Soomaalidu u aaminaysaa in hal sano gudaheed lagu tirtiro Soomaaliya inta tartiib loo kala saaro si loo kala nabad galo waayahay fiir daahir inaga iyo qoomiyadaha kale ee Ethiopia waa kala duwanahay Soomaalida iyo Ethiopia difference ba kaliya way Ethiopia kale waxa weeyaan waa dad isku dhex jiray oo qaar dadkooda ay u shaqeynayeen qaar dadkooda ay dhibaateynayeen laakiin inaga completely wixii meesha joogay hal ruuxa oo asxaan u sameeyay qof Soomaaliya ma jirtaaba yaraatee way 10 sano ugu dambeeyay way ninku marka hadduu qabiil yahay aniga shakhsiyan iska soo qaado haddii anu nidaamka kamid ahaa walaalkay baa jooga oo nadiifa marka lama oran kara aniga oo dhibaato geystay in ay dadkayga aniga ama taqaanaa meesha ka soo jeeda ay aniga ii doodayaan oo gacanta kula jiray dhig way they have to dadkan waa inay tagaan way move out ina ka baxaa systemka ana hadda kule lamana soo celin karo wax la qaadan karana maaha lamana aqbali karo laakiin waxa la isku hayaa waxa weeye ragga Cabdi shaqeynaa waa soo waxa tiri inta soo ogaa in saameyn badan leeyihiin waxa tiri waa inay baxaan nimanka dulmadiida la shaqeynayay Mustafa ee jidwaaqa u badnaa iyo kuwi kale ee ogaadeenka ila calsooca kamid yahay ayaa maanta caytamayo soo fadhiya meesha iyagu maxay rabaan soo Mustafa lama dhiga laftiisa kirigtanima ku jirto maya Mustafa horta dhageyso anu shakhsi ma taabanayo waxa taabanaya waxa ka hadlayna waa qadiyad weey hadaa waxa ku dhim from meesha la Aisha xuduudka Djibouti ilaa Garissa maanta fikirka yaal waxa weey dalka in la difaaco weey ma dalka difaac Soomaaliya kaamsiin laakiin mukulata in xilligan Mustafa oo meesha baneeyo oo qofka ay soo doortaan la keeno or nimanka sheegtay dulmidiid iyaga maanta iyaga kow ka difaac ila calsooca يرجع السعودي. isagoo de waa ambition siyaasadeed buu leeyahay hadduu meesha ka waayo interestkiisii isaga ahayd inuu mataqaanaa inka isdaba qabto laakiin ma aha hal shakhsi oo ka baxay ma aha saaxiibay ahaayeen waa halka qaba hal si kaadi
haddii uu aaminsan yahay Mustafa ama dadka kale ay aaminsan yihiin ee la shaqeynaya in ragga cabdi la soo shaqeeyay ay yihiin in laga saaro xisbiga soo gelin muxuu wasiirka warfaafinta ugu magacaabay muxuu ku leeyahay xisbiga golaha dhexe joogay ma taqaanaa oo halkaas i joogay muxuu hadda u xirxirayaa soo kaliya talisnimo ma hadduu shalay isaga magacaabay muxuu maanta u xiraya daahir codkii waa iga lumay codkii maxaa ku dhacay ma maqlaysaa hadda codka baan cod maqal waa inaan ku tira kugu soo celiyaa sug أقصد البضي حبسو هذا يجد وأقصد البضي حبسو وأقصد البضي حبسو قبل أي هاي موجي على ده هي ستة أضغط هاي بالقف كلا تجابني يا عبد الواحد عفيلنا يا ايد عبد الواحد واكو سلامي مجاهد واكو سلامي ايد عبد الواحد waan kaa qaaday aad iyo aad baan ku salaamayaa walaalkay daahir xamsa iyagu ay hadda oo ku soo celi doona laakiin xamsa iyagu waxaan rabaa in update garay maxaa ka socda jigjigaad sababa waa mahadsan tahay jigjigaad sababa kolley xamsa iga horreeyay oo si fiican u hadlay waxaa weeyaan walaale meesha waxaa la isla ciyaarayaa kubad baa la isla ciyaarayaa arrintu waxaan ku yidhi ciyaartu meel adag bay maraysaa waa final bay maraysaa muhiimaddu waxaa weeyaan marka inaynu inta newdka ka soo qaadano كل وركوما سيجنا دت كينا وركوما سيجنا لكن waxa weeyaan arintu xamsa soo fatire oo si fiican u soo hadlay hal in yar baan rabaa inaan ka jawaabo oo ahayd sababta uu ninkan oramka ah jawaahir ah uu u difaacayo Mustafa waxa jiray waqtigii Mustafa ay isqabteen ee lagu yiri yacnihi ama xisb qoliyihii cabdi ilay ka tirsanaa ee la shaqeyn jiray ku soo dar xisbiga waqtigii la yiri waxay sameeyeen tikreegi hadda u fiirsato beejajkooda ama yacnihi meelaha ay ku kulmaan ama xitaa magaaladooda way ka dabaaldegeen isbedelkii waxba kama jiraan bay dhaheen yacni iyaga farxad bay u ahayd inuu Mustafa meeshan ka baxo marka ormadu waxay ku baraarugtay Mustafa hadduu meesha ka baxo ay qoliyihii cabdi ilay iyo wixii garabkiisa ay soo noqdaan in ay garab tikreegi ka helayaan oo tikreegi awood tikreegi hadda hubka dhigis laguma samaynin way isdifaacayaan ormo way ku dhicilaadahay sababta waa maxay inaga markasta la inoo soo faragelinayo sababta maxay tahay markasta inaga la inoo soo dhexgalaya marka update badan uma baahna muhiimaddu waxa weeyaan Mustafa walaale daahirow waxa weeyaan Mustafa waa qof muujinaya in uu shacabka kasbado waa qof og hadii ay dawladdiisa dadkii hadda marka la dhaho xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida markii la dhaho qof walba oo deegaankeena ka soo jeedo oo dambiir lagu naxaya dhiig baa ka daadanaya magaca xisbiga marka wuxuu ku qasbaya Mustafa dulqaad badan buu sameeyay oo welibana dadka shacabka ugu caroodeen muxuu dadka u sii deynaya uu awooday Mustafa inuu Khadar xidho inuu Cabdiraxmaan xidho inuu Deeq xidho dhammaantood dambiilayaasha inuu wada xidho hadayna daahiro is indhatirin uu awooday laakiin muuna rabin Mustafa inuu xidho wuxuu isla xorriyadooda iska noolaadaan iska xamaashaan laakiin wuxuu aan ilowsanaa dadkan in ay daalimiin yihiin 27 sano iyo in ka badan wixii ay tikraa iyo balaayo ku irbadeynayeen iyo siyaasadoodii iyo lacag inay haystaan dib bay ka soo laba kacleeyeen okay Ahmed Shida ayay dadku ku mashquulay Ahmed Shida muxuu yahay Ahmed Shida inuu maanta heerkan la soo gaaro Mustafa isaga dhaliil kule Ahmed Shida ma suuragal ma noqonaysa cabdi intii maxkamad la saaro oo xarig la geliyo ina Shidana inuu dibadda joogo taas walaal waa qambaarayn
waa isku mid saxan bay wax ku wada cunayeen ninkii wax u yeerinayay buu ahaa ninkii federaalka u matalayay buu ahaa ninkii wax kasta u soo gudbinayay buu ahaa marka waxaan halkaa ka aragnaa cadaalad darro cabdi haysata oo ina shidana uu dibadda joogo shakhsigu wax mucaaradi karaa laakiin waxa masiirkeena ama shacabkeena daahira inaynu xaqira ma aha mustafa dad badan baa ogaadeenka waxay jecel yihiin sidoo cabdi ahaaba ogaadeenka waxay fiirsadaan qof kale ogaadeen bas ma fiiriyaan kale aan ogaadeen ku dhalan ma fiiriyaan waa dabeecadaha reeyaday ay leeyihiin way ma fahamtay okay ogaadeenka marka leedahay cabdi maxamuud cumar axmed shide iyo rag kale daalimiinta ah ma fiiriyo axmed shide uu ku maqan yahay mustafa taa waa mid kale mustafa waxa ka muuqato fudayd iyo kaligitasnimo sababtu maxay tahay muxuu xiray wasiirkiisa warfaafinta muxuu xiray kii mataqaanaa wasiirkiisa kale muxuu xiray kii mataqaanaa golaha dhexe cabdixakiin cigaal maxaa markaas loo geeyey shalay isagaa magacaabay allah ya isaac waxaa tahay hadda weligaa tahay xaq baad u leedahay inaad meel kasta oo Soomaali tagaan inaad tagto inaad Hargeysa tagto inaad Jigjiga tagto xaq baad u leedahay waxaan tusaale yar baan ku siinayaa Mustafa raggan isagaa soo magacaabay haddaan anoo dambiile ah hadda oo adiga daahira ama shacabkaaga dambi ka galay aan intaan ku dhaho wixii hal is cafiyo aan isnidaamiyo oon iska aamusnaado xaq ma aha inaad idulmido oo marka aniga aad isoo qabato kalarka haddaan iska aamusoon idab yeesho oo waxaad ii dirto aan yacni qof dee aan noqdo waaya arkay laakiin ka waran anoo dambiile ahaa haddaan haddana dembi kale kusii jiro tallaabo nooceed iga qaadaysaa raggan aad sheegto guuleed kiniisad iyo cabdixakiin cigaal ninkan jidwaaqa iyo ninkan ciisaha ah anugu dadka yacni waan bayaamiyaa labadooda iyo rag kale oo ku jira oo haddan rag ilaa 17 nin baa la xiray raggan oo dhan waxay ahaayeen raggii shirqoolka ka dambeeyey ee rabay axadii maalinkii axadda in ay qarxiyaan dadkii jigjiga ku dabaaldegaya ee kiristaanka ahaa inay qarxiyaan rabay waxaa jirta sheeko isniinta waxaa la rabay axadda intii la qarxiyo in isniinta mustafa la dul saaro oo la xidho waxaa kale oo jireen oo kow ahaayeen cabdixakiin cigaal iyo guuleed kiniisada guuleed oo cali loo yaqaano oo ninka kiniisada jigjiga in ay maanta kiristaanku jigjiga ku bataan ninkii sabab u ahaa ee dhulka kiniisada bixiyay dadka aan fahansanayn baan u faahfaahinaya dhulka kiniisada ugu weyn jigjiga dhulkeeda lama iibsanin isagaa bilaash ku bixiyey oo lahaa marka ninkaas wuxuu ahaa raggii cabdimaalik gaashaamo ku shirqoolay ee yidhi ninkan xuduuddu ka soo galay waa nin arsenal ah oo qolyihii ah wuxuu rabay xog inuu duubo oo ka dhigay qof hadda soo galay oo ku shirqoolaya mustafa cabdimaalik laguma soconin raggii marka tallaabooyinka qaadayay markii horena mustafa uu isdhahaa waa rag caadi oo dadkii la dhibayay bay ahaayeen daahiro ma waxaad leedahay in tallaabo laga qaado ma aha mise waa qabiil baa lagu adkaagaya isagoo ahay raggiisaa waxaa sameeyey uu og yahay inay cabdi la shaqaynayeen maxay tahay isagoo ku weersanaya xariga cabdi iyo mataqaanaa inuu inala goole eriyo muxuu guuleed kiniisad inuu magacaabo iyo cabdixakiin inuu magacaabo iyo kii kale warfa inuu magacaabo kuwaasi soo fudeed ma aha soo fudeed ku jirto ma aha aan kugu celiyo waxaan ku iri walaale daahira waxaan ku kugu celiyo waxaan ku iri qofka markii hore wuxuu aaminay in la qasbayay oo isagaa magacaawday waxaan ku isagoo dambiile ahaa oo ogaa cabdi inaynay la shaqaynayeen uu magacaabay uu xulal u dhiibay uu yidhi iska shaqaysta oo qaarkii kale uu yidhi iska baxsada ileen waan ognahay waxaan ku iri aan kuu soo bilaabay raggii iska wada tegay uu khadar xoolo ka mid ahaa ilka casa ka mid ahaa ilmo laba goolo ka mid ahaan xafiiskiisu fadhiyey deeq laba goolo markuu wareejinayay xilka wuu awooday mustafa inuu xidho laakiin iska baxsad iska taga buu ku yidhi iska shaqo taga marka kuwuu xilka u dhiibay uu islahaa waa dadkii la qasbayey baan ku idhi anigu uu xilka u dhiibay hadday dembi faraha kula jiraan haddana oy dhibaato wadaan ma waxaad dhihi markii hore muxuu xilka ugu dhiibaya muse maadaama ood markii horeba adigu aad cafiday hadda ay dembi kula jiraan waa in la qabto adaan jawaabta kaa sugaya daahir ha laakiin waxaan kaaga jawaaba taasi wuxuu maanta u dagaalamaya mustafa iyo wuxuu hadda xamsi ugula doonay waxay ahayd cid kasta oo maamulkii cabdi ku jirtay waa inay baxdaa laakiin toddobada xubnood ee guddiga doorashada qabanqaabada guddiga doorashada xisbiga inay toddobadiiba ragga cabdi yihiin iyo gabdhihii cabdi in wasiirkii warfaafinta dhammaa ee maamulka uu ka dhigay ragga cabdi waxa way maanta waxa la waa kirigi tarasnimo ina cala shucaasha la socday maanta haystaa dulmudida la socday haystaa marka ninkaasi cagteera haddaynu difaaciso oo muuqato inuu isaga laftiisa oo gumi dhaclaynayo siyaasadda ku cusub yahay waxba ka aqoonin ama uu fudud yahay soo laguma eeday karo axmed shiduu la socday oo shala ma dhihin axmed anigu wax ila noqon mayo axmed wuxuu ahaa gacantii cabdi maxamuud cumar
okay waa su'aal muhiim ah daahirow in aan yar yani ma pointiga aan ka hadlayno inaan isla qaadanaa fiican waxaa jirta Mustafa uu yimid ha burburtay laakiin dad baa meeshii joogay awood uma yeelanaysid markaa walaal in aad tallaabo qaado waa haddaynan indhaha istiraynin oo xaqiiqada isu sheegayno tallaabo kasta inaad qaado markaa ma awoodid waa inaad nidaam samayso waa inaad dambiilayaashii qaar xilli magacowdo waa inaad ka ciidanka maxay ka dhigto waa inaad kala bedesho waa inaad ku meel gaadho waa in aad nidaam step by step u wado awooddaad markay buuxsanto ayaa tallaabo kasta qaadi kartaa Mustafa markii muuna awoodin nin walba inuu xidho ciidan muuna haysanin way isku dhex jirtay meeshu iyadii oo garaadalo oo generaal ay joogtay marka waxa weeyaan qofkii dambi wada ee dhibaato wada hadda waxaad dhihi kartaa raggan iyagoo masaakiin oo iska jooga ayuu Mustafa xidhay taasaa dictatornimo noqon lahayd laakiin raggii Cabdimaalik Shirqoolay inay wax qarxiyaan rabay hadda Mustafa inay asbiyaan oo wali dawladda Mustafa agta shir qabatay may sheegin nimanka waxay ku eedesan yihiin waa la xeey way xireen bas ilaa hadda nidaam dawliga jiro oo ah qofka marka la xirayo si shalay barakad marka la xirayo qodobada loo cuskado kale inuu xiradiyaha dacwad ku soo oogo okay ma joogno Yurub iyo America walaala waxaan joogno meeshaan ka hadlaynaa waa Afrika daahiro meeshaan ka hadlaynaa waa Afrika halka shariica Afrika ma Yurub ninkan waa nin international standard waa wax soo bartay ma aha qof iska jaahil ma aha ninkan wax bartay waa macallima waa nin yaqaan qaynuunka caalamiga shalay marka kan amxaarka la xirayo qodobada loo cuskaday okay waan ognahay adiga maxaati aan qodobo loogu cuskanayn kan tigaraga qodobada loo cuskaday amxaarka qodobo oromo qodobo kan way ay qofka Soomaaliga qodobo loogu cuskanayn xarigiisa shacabka lagu sheegay okay daahiro aan ka gudubno waqti badan uma baahna inaan walaal guuleed oo cali iyo ina cigaal aan ku bixino adiga makhraatika inay dambiilayaal yihiin adiga makhraatika dhul Soomaaliyeed Cabdixakiin cigaal in uu bixiyay oo deegaankiisa uu ka tirsanaa oo cabdi inay uu ka soo horjeedo xubin matalu ah deegaankiisa walaal ninkaas waa Ciise isuuna xeel beelay waa ogtahay ma dhihi karaa Mustafa ku eego ma hayn karayo maya iyagaaba noo dhig lahaa iyagaaba tirnay tusaale yar baan hadda ku siinaya walaal ina cigaal ciisahoo dhan ma rabo anaa makhraati taa kaaga in la bedelo waa ninkii dhulkooda bixiyey waa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyay cabdi ilay garab ku siinayay marka walaal ma rabaan taa anaa makhraati kaaga hadda tusaale yar baan ku siin Axmed Shidey dadku ku mashquulaan Axmed Shidey naadeer daahirow meesha muxuu ku joogaa Mustafa yani leeyahay waa ku meelgaal Axmed Shidey meesha xisbiga nidaam baa lagu soo dhisay waqtiga la soo dhisay awoodda waxaa iskale madaxweynaha ogaadeen baa iskale ku-xigeenka beesha Ciise iskale isaga ma aaminsan Axmed Shidey taas waar sababtu loo aaminsanay waa maxay cabdi ilay baa wixii oo dhan qasay marka muhiimaddu waa maxay walaalle waxa masiirka dadkeena Mustafa dadkeena dan ma u yahay sheeko waxaa jirta hadda Cabdirashiid oo kale ka soo celisay ama dad baa caaya Cabdirashiid qof u jawaabaya ma jiro qofka u jawaabaana waa qof aan damiir lahayn yani oo wanaagsan Cabdirashiid wuxuu rabaa dad wax kale oo cadow ah ama tigray oo dadkeena lacag ku bixinaya ama ina shide in uu inaga mashquuliyo ee mucaaradnimo iyo wax kale iyo waxba kama aha wax kale uu rabaa inuu inaga qariyo marka hadalku isagoo saddex soddon lagama dhigo Mustafa on elf haday ka soo awoodda ugu badan deegaanka shacab iyo wax kasta on elf baa iskale Ethiopia deegaanka on elf way aaminsan tahay Mustafa on elf haduu ka soo jeedsado tallaabo ma qaadi karo laakiin on elf haduu garab ka helo tallaabo kastu qaadi kara iska daa ina cigaal baabili buu soo celin karaa baabili oo waqtigaad ugeed go'day buu soo celin karaa oo dhul Soomaaliyeed ah marka walaal waxa weeyaan sheekada yar ee isirbeex iyo wax iska daa dad hadday sidan ku sii socoto dad badan baa heega lagu shaambaday waxa la isku cabsiyo waa qabya laba qarnigii 21 baan maraynaa waa 2019 walaal haddii la arko wada reer saaqaho Mustafa difaacaya maxaa ku soo baxay Mustafa ila asfaa Mustafa dilay ama Bashir Garaada Abdulmajid dalilay 20 reer saaqaha ku yiri waxa tahay baqti nijaas baa tahay xaraami baa tahay ba u qoray maxaa ku soo baxay inaad waxa ku soo baxay qabiya ma waxbay ka dhimeen waana dulinimo in aad waxaas oo kale walaal aad dhahdaa ta kale qofka marka taageerayso waa inaad dhahdo Mustafa inaad deegaankeenu matala waxaa jirta waxa Soomaali ay ka dhamaanin maalinka xilka lagu qaabtay wuxuu ahaa sheeko yar oo sheekeeyay yaa jirtay oo ahayd ninku markuu xil qabto waxa la dhig reerkoodii ku soo ururiyay in adeerkii wax u qabtay hadda hadaan saddex nin oo hawiya iyo laba nin oo reer isaaqaan ku tagnaa ama shan nin oo hawiya iyo laba nin oo reer isaaqa oo ina shaqaalaysiiyo shanta hawiya lama arkayo waxa la dhig dhowr laba jaahuur buu shaqaalaysiiyay dhowr Mustafa qabyaaladiisa shantan kale ma arkaysa taa waa dhaqankeena
laakiin muhiimadda waa maxay walaale muhiimaddu waxaa weeyaan in la kala adkaado cid ha dulmiyin mustafaw laakiin daalimku ha kaa cabsado wasiiradan hadda rag jeel ogaadeen ku jiray yaa raggii ku kaaji jiray ee madaxa kaga kaaji jiray iyo hormari kari la'yiin oo xafiiskiina waryaa waxaa samaynaysa oo u hanjabaya waa dembiile hadda fiiri waa dembiile hala iscafiyashe inuu dembi galay ayuu iloobay marka maxaa qasab ah markuu arko raggii oo saa u dhaqmaya ina cigaal iyo guuleed oo shirqoolaya oo xilaya cabdimaalig awood isticmaalaya cabdiraxmaan laba goole iyo deeq laba goole iyo raggii saas ahaa waxay aaminayaan deegaankiiba inay iska soo ordeen uu deegaankii waxba una isbedel ka dhicin oo iyagu waa laayeen bay aaminayaan marka muhiimaddu waa maxay maxaa inoo dan ayna adeer dadkeenu naruura heleen mustafa qof ka wanaagsan ma garanayo oo ina soo maray waayo weli ma aragna cid la caburinayo weli ma aragna dad daahir cali soo intay u soo fadhiisteen life caayayo ma aragna weli wax la horta ma xagga dimuqraadiyadda mise xagga nolosha marka nolosha laga hadla mustafa shaah ba lagama cabaa layidhi nin shaah laga cabo ma aha waa nin keligii shiranka oo hel gurku dhashay cabdi waaye saas isku leeyihiin meeshtay taas ilaa raganimo ma aha taa anu kuma taageersan mustafa ninka ragga waa ninka gacan furnaada inaad haddaad gacan xidhnaato waxba kuma suurtoobayaan oo degaan iyo dad dhan baan maamulayaa dadkan waxaa leeyahay faatixada akhriya dhowrkan ka baaxaya bal daahira waxaan dhihi lahaa anigu walaale horta in yar buu ninku iska jooginayo dhibaatada waa iska badnayd waxbaa iska badnaa ururkiiba cabdi shalay aaba dhihi jiray horta aaba loo dhihi jiray cabdi waxay ahayd waxyada sandareen oo dadka siiye mooye dee aabahood muu ahayn walaale anaa deegaanka joogay qofna iga warrami maayo anaa hadda deegaanka kasoo tegay inaadeer shilinkiisa iyo qorigiisa oo dadku maamuli jira ya hadduu qori keliya wato cabdi way ku xumaana taada soo ma ogid okay walaal haddii dadka waxaa laga yaabaa waxaan hadda dadkan cabdiyow iyo aabba lahaa dad yar oo gaara oo in yar oo iska daba orada bese ayaa isaga qaadan jiray mustafa intii hadduu dadka dhan u qaybiyo dee intay dadkii afka ku shuban jireen oo dhan dadka marka loo qaybiyo dadka oo dhan wax yar bay u gaaraysaa marka intiiba hadda qaylinaysa muhiimadda marka waa maxay isagoo shaahba fiiri gabar reer isaaqa oo saaxiibo nahay oo mustafa ku waalatay ayaa wallahi been ku sheegmayo ayaa nairobi ka tagtay gabadhii saddex tira ka jara u tagtay waxay leedahay dadka u waaweyn ee mutacalimiinta wax bartay wallaahi billahi tallahu shaah u shubay laa ilaaha illa allah xusna waxbaa ka dhacay marka inaad aro ma taageertid qofka fakriga ah gacanta baqaylka ah ma hogaamin kara dad marka laga hadlo maxamed xaaji ibraahi igaala ka sheekeeye buugiisa akhriya qofka hogaamiyaha ah waa inuu yahay qof dadka aaminsan in leedahay budget dadweynaha yimaada ama dadka taageerayaasha ah ya waa in laga shaahay maalinta laga qayilayo ya hadda ka hore waxaa dhacday in yana kala gelayaa cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu ku wareejiyey maamulka dhan haweenku wareejiyey naago ku wareejiyey dabeetana cabdi dadka marka soo qabtay wuxuu jiray waryaa haye waxaas ma samayso markaas wuxuu jiray haa aabba waa ansixi berigi dambe naagihii tuubay noqdeen naagihii waxay dhan bay cuneen markaasuu ku yidhi waryaa naagihiina ku yidhi wixii leen siiyey mashaariicdana waxba laydinkama cuno laydinkama qayilo niman baa guryaha idiin jooga dabayaa ku dhisataa haddaan rag ku wareejiyo meeshuu yidhi waa lala qayili oo waa la cuntayn oo waa la shaxaadi idinku naagihiina nin ma shaxaaday male wuu ku yidhi meeshana wada ka qaadaya tuuggeey marka waxaa weeye meeshu waa in lala qayilaa dad waa in wax loo cunaa waa run laakiin ma taanadeer waa ku saxanta itixaad aha la yiro qof kale ma aaminsana taa waad ku saxan tahay laakiin tan ree cabdihaa baa runtaa inaad ninka ragga waa ninka gacan furnaada waqtiga la joogo weliba ninka gacan furan baa wax dhaqaajin kara haddaad saa ahaato meel walba iska soo kaa xidhi laakiin adeero tan maxay baa la beegsanaya iyo waxaa la beegsanaya mustafa walaalkii baa meesha ku dhigtay waa qof victim ah wuxuu inaga mudan yahay ixtiraam qofka intuu maanta raba in uu mustafa dhaleeceeyana cid buu beegsanaya faysal engineer faysal buu ilowsan yahay markaa ka dhigan tahay marka aniyow waxaa qurux badan qofkii awrkacsi hadda ma dhihi karo cabdirashiid cali shooca hadda waa laba nin oo ilmaadeer ah waa labadii nin ee istaageersanaa waa ninkii lahaa mustafa aniga in aan hadlo yacni awood igu siiyey welibana waa laba nin oo xidid inaguna xididka waan qadarinaa dee khayri iyo ma aragtay farmaajo weligaa isku dhacaya waa xaggan kale unbaa moogtahay unbaa yaa xalinayse marka inaad arrintaasoo kale ma geli karro waa ilfashaqnimo waxaynan ulahayn inaad dhaqan inaynu gallam aha wuxuu dooni ha qoro qofna of course marka waxaa weeyaan walaalle laakiin waxaa dhawaaqaya magaalada dhawaaqaysa calaa xal ugu dambayn beri waa jibco xisbigu waa su imaanaya sabay ku shirayaan isagana waa loo yeerin maxaa dhici kara beri kadib
waxaa dhici kara waxaa horta sagaalka gobol odayaal ayna cidna maam horta Mustafa niyo shacbiyadu haystaa sagaalka gobol odayaa isaga yimid haddii Mustafa loo yeeri jiray laba cashaa loo qabtay maanta way tagtay berribo Axmed Shide waa inuu ku yimaado ma rabaan in baarlamaan la fadhiisiyo ama wax la fadhiisiyo oday annaga deegaanka ka talin jiray annaga qof waan dooran jiray deegaanka annaga odayaasha ka talinay dhahan odayaashanadu Cabdili Bahdilina way soo noqdeen Axmed Shide hadduu laba cisho ku iman waayo isagay jirtaa annaga nama matalo markuu yimaadana bakoorad bay rabaan inay xilka kaga qaadaan cidna odayaashii waa dad firiya hadda qof isqasbaya ma jiro qof dhibaato lagu haya ma jiro laakiin deegaankeena walaal odayaal baa maamuli jiray dhaqanka Soomaaliyeed waliba farmaajo hadda bedelay oo dadka xidhaya oo dadka dhibaya laakiin Soomaali waxa la qadariyaa waa odayaal sagaalka gobol odayaal baa isaga yimid ma rabaan Mustafa ninaan ahayn Axmed Shidana shar iyo khayr ban lama joogi karo walibana waxa leeyihiin waa dambiire marka Mustafa awood buuxda la siiyay way noo basbaaseeyeen waxay noogu shubeen baasiin qaci wata annagu waan dhaleecaynay oo waxaan is eryanay ha lagu kala cabsada meesha dadka shacabka ha dulmiin laakiin daalimiintu ha cabsadaan oo ninka jooga maanta Dubai iyo Turkiga naxnin ha soo gaadho maxaa lagu sameeynaya guryahaagi ma la wareegaya maxaa taro ganacsigaagaas meesha ku qabsoona ma yaa la fashilin doona tolo guryaha meesha ku lahayd inay cabsi gasho laakiin ninka hadduu aamino inuu jigjiga ku noqdo waa marka Mustafa annaga saaribnay way noo sameeyeen way noo basbaaseeyeen berina Mustafa ma tagayo cid tagtay meesha ma jiro ina shida waxaan ka qoray berri Mustafa tagay ha iga qor ha hey hadda ka hor markuu Cabdi joogay waxaa jira nin baa ka hadlay meel buu ka hadlay dadkii wuxuu arkaysa waayay xabsiga jeel ogaad lagu calaabayo dadka sida loo dhaqmayo gaashaamo wixii ka dhacay dadkii waa inaa arkaysa waa Ethiopia wuxuu ka arxandarrada Ethiopia maanta Bushir buu ka hadlay ku yiri al abu Ethiopia adka haye muddo kari taasoo ma yahay wuxuu yiri al abu Ethiopia adka yeesay oo ku wada Ethiopia arxandarrada oo xanuun badanaa adkaada marka awoodlaha uu fahmaya qofka kale laakiin isagu wuxuu ka wada xanuun kula Cabdi baa nimankii intii la qaylay u sheegay oo ninka wuxuu ka wada Ethiopia adka arxandarrada iyo dhibkaan wadno waa loo yeeray ku waalid waxa la yiri wariyaahay noo fusay maxaa ka wada Ethiopia adka markaasuu ku yiri ee waata Eritrea ka soo adkaatay ee Soomaalida ka adkaatay oo ka adkaatay ee onaag ay ka adkaatay kuwa ormada hasan ka wada abo marka waxa weey anigu waxaan ku leeyahay ala xal Ethiopia adka bari wax la filaka waxa weeyaan marka Mustafa berri anigu boqolkiiba boqol walaal waa siyaasad waa loo yeeri karaa qaawadana loo yeeri karaa qaawadana u bixi karaa laakiin anigu saan xog ku hayo qofna igama dhawo Mustafa saan xog ku hayo ma tagay berri intaasaan ku leeyahay laakiin Ethiopia anigu waxaan aaminsanahay Ethiopia sharci kama jiro Ethiopia laakiin way xorowday sidii hore maaha tigrayda ilaa hadda lagu dhicilayahay inagu aan isdifaacno Ethiopia way xorowday oo gobol oo ahmaara ismaamulayso oo tigrayda ilaa hadda lagu dhicilayahay hubkoodii baa la qabsan laayahay marka inagu niyoyna isduleeynin inaga isduleeyna daahiro intaasaan ku leeyahay in maamulka oromada kii tigray kii amxaarada sidoodii ay TPLF ku ahaadaan kuwa shaad dadka wax dhib ka geysanay ay joogaan maamulka Soomaalida ay aaminsan tahay inay baxaan wixii Cabdi ila shaqeynayso laba dhigar Soomaali lafteedu dib u shin u baahan tahay wax aad saysan waa degdeg ma jirin markii oromada ay mudaharaadaysay ahmaara lagagama mudaharaadin markay oromada mudaharaadaysay dhabuub lagaga mudaharaadin kilalkeenu wuxuu sameeyay Tigray ayuu ahaa dadka Tigraygu dadkooda mayna laynin ninkii Tigrayga ahaa dadka meesha dadka la qabanaya ay dhibaatada ka geysanayeen waa Oromiya iyo Soomaalida waqtigii la mudaharaadayay inay dadkan mudaharaadaan ninkan hadda jooga ee oromada ayaa u fasaxay dhibaato uu geystay laakiin ninkii horboodayba ah waa la xiri kari waayay xitaa istaafkiisa lagu dhici kari waayo oo Ethiopia oo jirta oo xayla Maryan Dasalamkii uu joogo yaa la xiri kari waayo ninka oo la isku dayay in la xiro dadkiisa isaga fasaxay mudaharaad uu yiri ninkii awoodan siiyay shacabkiisa isagu ahaa Cabdilaahi uu hortaagnaa oo oroma dhawn buu lahaa oo oroma waxay xaq u lahayd Ethiopia markay kaga takhalustay dadkii dhabar jabinayay ee ku mudaharaadayay ee lacagta Tigrayga siinayay keenu jawaari كان كونا سعوني إثيوبيا وحكر إثيوبيا كسعودي لكن أفلقاديني جواري بقى أفلقاديني أرمى العايي عيد كستال العايي مركز مدهرادين وادو دباتوين كلو سميني تيجي حتى إنه كرافي إن إلي مركز deegaankeenu Oromiya uu dhabar jabinay markuu Cabdi Ilay joogay marka ninka dhabuubka
ee madaxweynaha dhaguubta ah ama binishaagul gumusa ama hiriiriyiinta ah dadkoodii dhib kumayna samaynin jeel umayna samaynin waxa yahaa dhiigta iyo federaalku samaynayeen mooye shakhsiyan mayna u samaynin tigraagu dadkooda ma ayna dhibaato iyo waxba gaadhsiinin marka seed u simi kartaa nin dadkiisa ileen inagu haysana ee shacabkeenna haysta shacabka tigraagu madaxweynahoodu dhib kumuna samaynin oo ma haystaan marka sideed u simi kartaa nin shacabkiisa cunayay iyo nin shacabkiisa u qaraab tagayo dad kale wax uga soo qaaday waayahay weliye ciid cabdiwaaxid saalo waa masan tahay waaya waxaan soo qabanayaa aad iyo aad baan uga mahadsantahay haye inaad assalaamu calaykum waayahay haddaan ka gaaro 1 iyo 2 ayaan soo qabanayaa waayahay cabdirasaaq daahir ayaan iminka doonay hadduu iga qabto isaga laftiisu waa nin war badan dhulkaasi war buu ka hayaa cabdirasaaq daahir waayahay xamse maxamed waa ka baxiyey kuma jiro qadka waayahay intaas aan maanta sheekada wejiga hore kusoo gebagabeeyo markaan kulmi doonaa si gaar ah u falaqayn doonaa arrimahan dhinaca la shucaacna waa soo gelinaya qadka live aan ku casuumayaa mar dhaweyta mataqaana arrintaa ka wada hadalnay waana diyaar waxa weeye ninkii ilaa ilka case axmed ilka casena waa keenaya bartaana keenayaasna wuu hadli doonaa cabdixakiin cigaal waa rabay inaan mataqaanaa aan waraysto laakiin uma suurtagelay sida ii muuqato oo waa xiran yahay waxa weeye dadka kasoo jeeda galmudug meel laada bandirqaari degmo laada ayaa la sameeyey dhulkan waxaa laga dhigay free meel strategy ku taala waa dhul qurux badan oo uduga ceelashii biyahana meesha iska durdurayaan dhulka marka ku dhifato waa soo baxayaan waa beeraley qofki u baahan guddiga ayaa soo geli doona videoga laga soo duuba deegaanka iyo dhismaha ka socdo beerooyinka laga dhisayo kaalay imow galmudug dhul lacag dhaala qaado guri ka dhiso waa bilaahi tawfiiq dalac dabasha geedaha ma ruxdo inay ciyaarsiiso alla Ethiopia adka